إذا مدن قريه كسو سقيي مالين بدقمو إيو تولسو قبسانيي هديرنا أينو إلهي هد سهلانينو waxaad moodaa in ayan iyagu waxba la harayn oo iska daa ciidamadeen ee dadkii shacabka ahaa ee wadada marayay iyo dadkii wala iyo dadkii xanuunsanayay iyo mayd maxaa la sida ugu dambeeyo rakaabkii gaariga ahaa ee halka marayay ninka sheekha ahaa lagu dilay way inaynu inagu turaale ku jiraa moodaa ilaahay dukuro iyana ayan waxba la harayn qaniya kaagoysa waxaanu caalamka iyo dawladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed ba aan u sheegaynaa dulqaadka waa naga soo dhamaaday intaanu dulqaadan karaynay waanu dulqaadanay waanu awoodnaa tol baanu u leenahay Allah caadilo guusha nasiiyay baynu haysanaa wixii bishan Ramadaan ka dambeeya ilaahay uu ku roon yahay maanta iida la iiday waxaanu la haraynaa ma jirto haddii reer Sheekh Isxaaq inaba aqli uu ku dambeeyo caruurahooda ha naga kaxaystaan guryahoodii ha kula noqdaan deegaankooda ha ku ekaadaan dalka yaga ha nooga baxaan oran mayna naga guuro gurigeynba iyo goobta joogsada waxaanu leenahay deegaankiina iyo dalkiinaba ku noqda walaalayaalow inama wada qaado deegaankeennu taladayadu inama wada qaado wiilka Baydhabo jooga iyo wiilka Hargeysa jooga annaga nooma kala duwana wiilka Berbera jooga iyo wiilka Baraawo jooga Soomaalinimada ka Soomaaliga abaabana xiga ee Baydhabo jooga iyo ka Berbera jooga ee Soomaaliga ah baana xiga إنك محاين الدقة إنك من نماين الدقة إنك إلهي نمعدن إن السيئي قلوبتنا إسوس الدمي دنتنا إنينو إلى شنو وحال علي وحيالي لباتأو قيسان يارنتا وشيخ كهد لي عدوك إنو قسود دايي خمر جعه للربا إن ويلشين اللي يسكد دلوسيدا إنو أقهر تيجلهاي وحال علي وحي من نمدين وحيالي sidaynu u ilaashan lahayn yaa ina deeqda oo ilaahay uu ku rooyahay inaynu ilaashanno oo ku fara adeegno loo baahan yahay waxa ina deeqda in aynu u midowno oo aynaan waxba kala harin dibkan ina dul saaran sidaynu isaga qaadi lahayn waxa ina deeqda dalkeenna iyo deegaankeenna oo inoo xora oo wiil asaageeni uusan inugu haysan ama inugu handadayn waxayna deeqda inaynu talada Soomaaliyeed ka mid noqonno oo aynu go'aan ku leenahay aan la inoo talin waxayna deeqda in wadankeena iyo deegaankeenna qof kasto Soomaaliyeed uu ku soo dhawaan karo degi karo oo ku noolaan karo oo aan wiil kale oo Hargeysa ka yimid uusan ka kaxayn karin oo ka eriyi karin waxayna deeqda inaynu Allah Azza wa Jalla si xora u caabudno